waa hagaag daawadayaal halkan waa telefishinka STN waxaan ku sugannahay magaalada Stockholm cariga Sweden waxa soo dhamaatay xaflad weyn oo jaaliyadda Sweden ay kula kulmayeen wafdi ballaaran oo hogaaminayay gudoomiyaha aqlabiyadda isla markaana gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xamuud Jibriil ku soo dhawaad adigoo soo koobay maadaama waqtigu yar yahay maxay tahay ujeedadaada iyo rubad timaadeen mudane waanigii ka warramay halkan ka sheekay waxaan u nimidnay inaanu waxaanooyinka waraaqa badan oo sidaan gudbinay oo aanu in toos loo siiyo sida Finland waxaan kaloo u joognaa shaqooyinka ay soo kordhiyeen qolada xamar ee ay inay fiisaha ay ku qasbeen shacbigeygii inaanu dalka madax bannaanahay inaanu waxaan furnay wax la yiraahdo visa on arrival lagu qaato oo cid kastoo Jamhuuriyadda Soomaaliland la socotaay in visa airportka ay ka qaadan karto kaasna way aqbaleen Jarmalku waa aqbalay wadamo badan oo Yurubna way aqbaleen kaas waanu soconnaa shacbigeygana inaan waalino oo aanu qadiyadeedana aanu ka iibino oo qadiyadeeda iibgeyno ayaanu soconnaa baarlamaan baad la kulanteen baarlamaanka Yurub sida Finland iyo Sweden waa baarlamaano 100 sanadood jiray waxaas leedahay maxaad ka faa'iiday hal iyo labo والله waxaanu ka faa'iido waxa weeye waa rekoorkooda sida ay wax u qabsanayaan iyo xiriirka Soomaaliland bilaamay halku 20 sano ka hormarayay iyo maanta halku maray kala duwan tahay xiriirka waanu xoojinay waxyaabahan ka faa'iiday Finland iyo Finland markii ugu horeysay maanta maaha waa markii labaad saasa la iskaga dhaxlayaa waxaanu ka faa'iideynaa waa xiriir wanaagsan garasho inay qadiyadeedii ay isha kala leeyin jireen xilliyada qaarkood maanta inay arrinteedii serious tahay oo indhaha nagu eegayaan iyo wada qabsi waxaasna ka faa'iidnay su'aal reewdal ay badan isweydiinayaan baa jirtay madaxweyne Cirra ayaa booqasho ku tagay booqashadaasna waxa la filayay in uu dhageysto cabashooyinkii xildhibaankii awdal baa tahay ugu muddo karsanaa waxa la sheegayaa in madaxweynaha aanan cabashadii loo gudbin oo wasiirada xukuumadda adigoo aad halkan ka hadlaysay oo muxuu ahaa salaadiintu ayna wax cabashaa u gudbin oo weli guuxiyo sidaasi gobolka awdal ugu jiro maxaa taa ka leedahay waxaan taa ka leeyahay shacbiga codkooda annaga ku fadhiya 13 xildhibaan bay awdal dooratay kuwa 13 kaas awdal codkooda ku fadhiya madaxweynaha anagu waan kala hadlay anagu qadiyadana woogiyahay wixii saliga jira hoosba gacmo gelin hoos baa loo dhaqaa madaxweynuhu woogiyahay odayaasha iyaga looma dooran laakiin odayaashaydii way sharfan yihiin wasiiraduna waa shaqaale xukuumadda u shaqeeya oo iyagu xukuumadda u shaqeeyaan arrintaasi horumar bay awdal ku bedelanaysaa laakiin ka dhex galay cabashadii madaxweynaha looma sheegin wasiiradu lacag bay salaadiinta siiyeen adigu telefoonada halkan ka diraysid sida loo sheego halkaasaad ka maamuleysay suldaankaaga waxaad ku qancisay inuuna madaxweynaha waxba la weydiin maxaa arigaa ka jira mudane wax allaaliyo xariirka ka jiray arinta cabashadaha haddii ay bani aadanka ay cabashadu ay aad ugu badato self esteemkiisa dhaawacma wax cabashada ma jirto adiga wadalka waa la wada leeyahay miiska inta yimaadaan baan rabaa raawdan sida ragga u hadlaan oo waxay qaataan marti kuma aha meesha ha ka dhigin martiin cid wax weydiisan karaan ma jiraan miiska inay yimaadaan ay waxooga ay qaataan ay sheegtaan madaxweynuhu koogi waa kay doorteen xaq bay u leeyihiin hor fariistaan waxay doonaan ku yiraahdaan laakiin waxaas la yiriyo iyo saxaafadda laga hadlo waxyaabaha shacbiga reer awdal isuula ku noolay waxyaabaha naga hadlayeen ay leeyihiin ka daaya odayaashu yaanay saxaafadkaadin cidaba saxaafadkaadi doontaana ma jirto awdal iyadaa waxaan xaq u leh iyadaa leh waxa rabana adar waa wixii tabasheeye wixii jiray nin aan marti ugahay Soomaaliland ma jirto waxayga duur cad baan qaadanaya kaan aniga ogolayni isdiisa ma ogoli